asxaabey soo dhawaada jimco wanaagsan meel walba oo adduunyada aad ka joogtid haddii aadan la soconin baryaha lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga ayaa heshiis saxiixday. heshiiskani waa ka dabageenaya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga ayaa heshiis saxiixday. heshiiskani oo in Soomaaliya laga helay oil iyo gas. oilka iyo gaskana qoditaan ayay u baahan yihiin. dowladda Soomaaliyana ma qodi karto, diyaar uma ahan, halgankaasi ma gali karto. sidaas daraadeeda Turkiga ayaa soo istaagtay oo dhahday Soomaaliya aniga ayaa idin caawinayno, aniga ayaa idin qodaya gaska, aniga ayaa idin qodaya oilka. mana ogin xataa inuu oil iyo gas meesha yaalo, laakiin waa idin hubinayna, qalabkiina waa haysanaa. Soomaaliya dad badan la taliyeen oo dhaheen inta aadan go'aankan la saxiixin Turkiga gadaal u soo noqo, isku day wadamo kale oo arrimahan ku sameyn kara in aad heli kartid. heshiiskaagana la gal, saxiixaagana la gal, si Soomaalida oo wadanka joogaan ay horumar u gaaraan, wadankiina horumar u gaaro. Soomaaliya maxay dhaheen maya dowladda Turkiga waa dad walaalaheena, khiyaano naguma sameynayaan, soo heshiiskayna iyagaa la saxiixanayna. dad badan loo yaraa la dhaheen. marka arrintan usoo bandhig wadamo kale, waxaa laga yaabaa in deal fiican Soomaaliya la siiyo, waxaa laga yaabaa in heshiiska soo socdo oo ka faa'iideysan karto Soomaaliya. marka waxay dhaheen maya, heshiis fiican waxaa la sameynaynaa Turkiga. dowladda Turkiga soo gasha meesha, heshiiskii waraaqadihiisa xalay wada aqriyo, wuu dheer yahay, qof kale online oo gali karaa, wuu fiirin karaa. laakiin qodobyada meesha ku jirta wuxuu yahay oo aan kasoo qaadanaynaa laba ka mid midda koowaad, waraaqada koogeeda ilaa dhammaadkeeda markaa fiirisid, hal meel ma dhahayo Turkiga Soomaaliya halahan lacag ay helay. Turkiga waxay dhaheen waa idin qodaynaa oilka and gaska, waa fiirinaynaa, laakiin anaga profada rabnaa inaan helnay dhaheen. wax xaqna waa mugta haddii wadan ku imaado oo gurigaaga kugu imaado oo rabo in uu ku qodo gas ama oil, lacagta kasoo baxdo oo la dhaho profitka inay wax qaataan, wax sharci waaye, waa ku qaadanay. laakiin kuma qorno halaha lacag ee Soomaaliya helayso, percentage-ka ee Soomaaliya helayso kuma qorno, percentage-ka oo Turkiga helaysona kuma qorno. soo haddii aad fiirisid dilka la saxiixday, kuma qorno halaha lacag ama percentage-ka oo boqolkiiba halaha ee Soomaaliya helayso kumaba qorno. lagama yaabo. ka fiiri page-ka koowaad, kan labaad gal, kan saddexaad gal, waxa helaysid ma lahan. aniga xalayto waqti badana iga galay, soo page-ka koowaad fiiriyay, page-ka labaad fiiriyay, hal meel kama helin oo dhahayso Turkiga halahan percentage ay qaadanaya, boqolkiiba 30 ay qaadanaya, boqolkiiba 70 Soomaaliya qaadanayso, war la yaqaan waa kuma qorno. boqolkiiba 30 Soomaaliya helayso, boqolkiiba 70 Turkiga helayso, war la yaqaan waa kuma qorno. soo marka haddii aad horay u fiirisay kiisaskan camal horay u dhacay, hadaa fiirisid wadanka kasoo qaad wadanka la dhaho Congo oil ahaan qani waayo, wadan oo oil badan leh waayo iyo gas badan leh waa Congo. fiiri hadda ka hor saxiix oo midkaan la mid waxay la galeen wadamada French-ka la galeen iyo company private companiyada u imaadeen, waxay dhaheen oil haysatiin, anaga idin qodayno, qalabka anaga haysano, dadkii waxaan khibrad u lahay anaga haysano, anaga idin imaanayno, wadankiina waa qodanayna. laakiin maalintii wixii ay saxiixayeen Congo ku noqo contractiga koowaad ee saxiixeen, fiiri kuma qorno hal meel in Congo 10% helayso, 20% waxaas dhan waaba shibaa laga dhahaybo. reer Congo way saxiixeen. hadda Congo fiiri wadanka Africa ugu qanisan oo oil waaye, laakiin dadkooda wadanka poor waaye, lacag ma haystaan, wax ma haystaan, habaan ma basal wax loogu tagama. lacagina French wadamo kala xadeen, waa laga wada qaatay, ilaa hadda waa la qaadan weeyay lacagtooda. mana waxna ma ka dhigi karaan, waxna ma ka qaban karaan, way ahaatay. sababtoo contractigii markii la saxiixayeen ma fiirin, iskama fiirin, way ku qabsadeen, maxkamad ay saareen. maxkamadii maxay dhahday contractiga meesha yaalo, contractiga waa saxiixdeen, idinkaani laga rabeen inaad looyaro qabsatiin, idinkaani laga rabeen inaad dad badan oo idin fiiriyay keensatiin, laakiin waa ku dhacdeen qaybtaasi. hadda Chad fiiri sidoo kale marxaladan camal lagu suubiyay, wadankooda dadkooda shaqo ma haystaan, wax ay haystaan male, ship waay. Zambia fiiri, haddana Zambia la fiiri, Zambia sidoo kale hadda dhow waa loo imaaday, waa niilo qodaha la dhahay gaska iyo oilka, waa loo imaaday, waa loo qoday, laakiin lacag may ka faa'iideen Zambia. fiiri hadda good example waay. Zambia
contractiga lala saxiixdana midka Soomaaliya camal waay exactly waay meesha kuma qorno Zambia halahay helayso wadanka u qodana French oo ahaa iyo wadamo kale iyagana meeqay qaadanayaan kuma qorneen sidaas daraadeeda lacagtii daan ay qaateen hadda Zambia lacag ma haystaan habaa Mombasa inay taagan yihiin jiqay ku tahay Chad sidoo kale jiqay ku tahay Kongana sidoo kale waay Soomaaliyana jidkaas ay saaran tahay jidka oo hadda waxay saaran tahay saddexdan wadan mareen maxaa yeelay Turkiga dadkooda keensanayaan Soomaaliya waxaan way qodayaan markay qodaan ee gaaski helaan oilki helaan boqolkiiba boqol Turkiga lacagtaas dhan qaadanayso gaaski iyo oilki Soomaaliya leedahay dhan Turkiga qaadanayso waxaana loogu qaatalay farsamo wadan muslim aan ahnay waa idin caawina taas loo qaaday kaas qodobka koowaad waay laakiin qodob labaad ku jiro contractigan hadii ay akhrisatiin soo fiiriya oo aanan weligay wadan lagu sameeyay ku arkin qodobka labaad waxa waaye contractiga wuxuu dhahaa in 10 sano oo hadda soo socoto badda Soomaaliya Turkiga xukumaysa ee lahaan doonto 10 sano hadda soo socoto badda Soomaaliya Turkiga iskale contractigaas uu ku qoran yahay kalluumaysiga ka iskale meel kasta oo Soomaaliya ka iskale hadii loo baahdo Turkiga wadamadan Ethiopia xataa inay soo marto hadii loo baahan yahay jid ahaan ama dawladda Mareykanka ama any dawlad oo markab wataan hadii ay badda Soomaaliya soo marayaan Soomaaliya lagama hadlaayo Turkiga lagala hadlaa maxaa yeelay waxa naga wakiil waay waxa naga wakiil anagoo bad lahayn amal laga soo qaado waxa naga wakiil 10 sano hadda soo socoto Turkiga soo Turkiga way imaanayaan oilkii noo qodayaan gaaskii noo qodayaan lacagtooda dhan waa leexsanayaan dadkii qodaayna dadkeena ma noqonayaan Turkiga fiir Turkiga iyo China meel kasta ay tagaan dadkooda ay keensadaan dadka waxa qodaay dadkooda ay noqonayaan dad Soomaaliya oo Soomaaliya ka imaada inay ku qodaan hadaa ka fikiraysid ma jiro dadkooda ay keensanayaan dadkooda noo qodaayo dadkooda ka bariisaynayo dadkooda qaadanayo badane dadkooda ay keensanayaan dadkooda noo haynayo meeshana waxa ku qoran in Navy-ga Soomaaliya la dhisay shaqtiga hadaa fiirisid waxa kale oo ku qoran oo ajiib oo iga yaabiyay in Turkiga ayna Navy-ga Soomaaliya dhisaynin 10 sano Navy-gooda keensanayaan badda ilaalinayo badda Soomaaliya leedahay anaka lahayn aboowayaasheena lahaayeen aboowayaashooda kala lahaayeen ciidamo Turkish fadhiisanayo oo Navy ika meesh ka bariisayna ka waranniyo ma fahamtay hadii dawladda Turkiga ee Soomaaliya jeceshahay anagana jeceshahay wadankii jeceshahay horumarkeena ka talinayso dilka waxa ku jiri lahay in dawladda Turkiga ee dhisto Navy-ga Soomaaliya ilaashadaan qaladka meeshaan ka soo baxayna mid kale idin sheegaa dawladda Djibouti hadda fiiri badeeda yaa iskale dawladda Djibouti miskala same deal ay saxiixan in 30 sano laga wakiil yahay oo wadanka Mareykanka iyo wadamada French ay ka mas'uul yihiin hadda fiiri portka oo Djibouti fiiri Djibouti badda way leedahay laakiin iyaga ma iskalo deal ay saxiixan deal oo qaldamay waay soo marka ani waxa la yaabanahay dawladda Soomaaliya markay dilkan yeesku dhahayeen Djibouti maxay u la tashan waayeen Djibouti madaxweynahiisa inay wacaan maxay u dhigi waayeen sheekadana wadnaahe maxaa ka dhigi lahaydeen anna waxa u dhaaran karaa in dawladda Djibouti ay dhigi lahaayeen walaalaheena Soomaaliya ha isku saxiixina badiina in la lahaado 10 sano maxaa yeelay anaka ku qasaarnay hadda badda Djibouti fiir iyaga miskala 30 sano hadda soo socota waa laga haysanaa anaga badda Soomaaliya 10 sano hadda soo socota waana laga haysanaa ciidamo oo waxa fadhinayaan oo Turkish ciidamadeena ma ahan anaka miskilihiin walaalaheena ma ahan badda Soomaaliya markii la soo maraayo ama kalluumaysi looga baahan yahay dawladda Turkiga la wacaa iyaga naga wakiil maxaa yeelay liis ku sameeyaan mi fahamtay oilkii la qodaayana iyaga qodaayo qodobkii oo contractiga markaa fiirisidna waxa ku qoran Turkish daday leeyihiin oo dadkooda inay keensanayo u qodaayaan dadkooda keensanayaan Turkish iyo China meel kasta ay tagaan dadkooda keensadaan hawsha u qabto soo qof Soomaali shaqo ma ka helayo qof Soomaali meesha ma ka noqonayo manager ma xukumaayo iyaga soo badeena iyaga haystaan iyaga ka bariisaynayaan dhulkina iyaga ka bariisaynayaan oilkii waa la qodaa soo anaga marka maxaa noo soo heray in qabiila isku dagaalno
qabiilkii dagaalkiisa intaa ku jirno oo tiktok isku dagaaleyno oo qabiil iyo wax walba ku jirno badii 10 sano saasaa loo farsamaystay badii Soomaaliya waa ku daysay anaka miskaliin waa la qaatay waa badda liido waa ku daysay marka ma fahamtay badda liido adi miskaliid ma fahamtay badda liido adi miskaliid waa ku daysay badii Soomaaliya dhan adi waa ku daysay marka ma fahamtay adiga waxa kala ordaysay Ethiopia moogta hadda Turkiga u gacan gashay Turkiga qaatay 10 sano soo socoto oo dhamaatay oilkii oo gurigi aan hadda isdhehayna qoti iyo wixiina waa dhamaatay sheekadaas waa ku daysay marka waxa waay anaga aan iska wadano qabiilkeena tiktokeena isku dagaalno hoosheeda ha noo socoto anaka le isgarbaashno anaka le aan dhahna laandheera tahay iyo hooshaas aan ku jirno marka waxa waay mar dhow marxaladda si u socoto sheeko xun waay marka ma baatay haddii kala dad yaho hala kaco marka ma baatay sheekada ma soconayso hala soo raadiyo dadka oo saxiixan ka dambeeyeen qaateen sameeyeen sababtay ku keeneen in Soomaaliya 10 sano la qaato dadka ogolaadeen yaa waay in heshiiskii oo dhulka la qodo oo oilkii loo gacan geliyo Turkiga yaa keenay dadka Soomaalida inay isku imaadeen may vote gareeyeen waxay dheen arintan ha noola sameeyo anaka ka wakiil ma dhihin soo dadkii waxaan sameeyeen lacag may qaateen iyaga marka bangiyadooda xataa in la soo ogaado waa iyaga ma lacag qaateen dealkan si u fasaxaanay u fududeeyaan lacag ma la siiyo guriyo ma la siiyo maxaa anaga wax ma ka ogin laakiin mashquulkeena wuxuu yahay TikTok isku dagaalsanaa asxaabi until next time